السلام عليكم. waa Yasmin Kastan, AI specialist iyo machine learning. Ana wax ku ogaato sida uga faa'iideysan karto artificial intelligence ama maskaxda macmalka ah. Haddii aad ganacsatada yar tahay ama company aad leedahay shirkad ama waax ama aad maamusho shaqaale weyn, wax aliyaal waxaad doonto ayaa ku qabsan kartaa. Waqtiga ayay ku soo gaabinaysaa. Repetitive waxa la yiraahdaa maalin kasta taskiga qabanaysa shaqooyinka qabanaysa ayay ku qaban kartaa. Xayeysiinahana waa lagaga raystay. Marka haddii aad doonayso inaad wax ku ogaato, waxaan maanta tusinayaa platformyo badan oo aad kaga faa'iideysan karto iyo waxay yihiin. For example, platformkan oo kale waa aragtaan hadda kabahaas oo kale kabahaanayto kale u jeedaan, yani haddii aan taabano waa qofka kaba gado let's see waxyaabaha lagu samaysan karo. waxyaabaha lagu samaysan karo waxaa kamid waxaa lagu xayeysiisan karaa wax awalba adigoo far qoraayo tax qoraayo. taxkaasitana wuxuu rabaa in aad muxuu ahaa prompt wax la yiraahdo aad amarto, aad khibrad u leedahay sida loo amro platformyada AI-da. tusaale ahaan hadda sheeka qofkii sameynayo kale waad aragtaan sawiradaasiita oo dhan afrikaanka qolooyinkaasiita ah. sheeka caruureed haddaad sameynaysid sidoo kale, haddii aad ganacsi xayeysiisanayso, wax walba waxaasiita oo dhan waxay ku imaadeen textka ayaan waxaan tusinayaa sida loo sameeyo. marka ugu horeysa platformkanit waxaa la yiraahdaa Leonardo AI ayaa la yiraahdaa. marka waxaa laga rabaa inaad dashboardka barato. dashboardka wuxuu sameeyaa real time canvas, real time gen muxuu ahaa motion create image upscale oo ah sawir jiro qurxoonaysi canvas adiga gacantaada ku subsan kartaa, yani si artistic ah oo kale. marka hadda image generation aan gelinaa iyo abuur muxuu ahaa sawir. marka rabto inaad sawir iyo abuur tiraahdo, yani halkaanita wuxuu ku keenaa amarka meesha ka siinayso. promptigan waa la bartaa ama waxaa la isticmaalaa qaabab kale oo platformyo kale oo AI ah oo si qurxoon oo AI-da sida u qori karto ku qoraayo.